وأنا ونكسن داود يركسر دوادة برنامج جارة أو ورئيس كلية لندن دينيس دان أو معمولها مشروع عاي بحين السهيات دا وول بانك يسدو كلنا أي فرنت هذا لديه سومالان بيزنس فان ومدوين كي قدم بيه كسر عليه سومالان هذا بس لقوا ورقة داود يروح مدوين كي قدم بيه سو بحي هذا الحين مشروع عسير ودد بدني أي ككهنن من عيك الدوان الشيء يعني أنا يسوي صحة مشروع عسوبلان هذا وحنو حفيز كيسو كبوا خني دينيس دان أو مشروع عن سوق معمولية وحنو نحكي الدين دونا هبك ومشروع عن السعودية سؤالك الله حريرة جودهان مشروع عن سومالان وحو فايدة وفريمة. And Dennis, welcome to the program. Thank you. And firstly, to be known who you are exactly, please give us an introduction about your organization and what kind of organization you are. Okay, we are the Somaliland Business Fund, or SBF, and we are one component of a larger World Bank managed program here in Somaliland. That program is called the Somaliland Private Sector Re-Engagement Phase 2. The other components in that program, if I remember correctly, there's work developing Berber Port. There's a value chain support for fisheries and gums and resins. There's support for solid waste management. There's support for the financial sector and what we call the investment climate. I think that's a one-stop shop. Sorry. su-aasheed weydiisay jawaabteeda waxay noqonaysaa waxaanu nahay maxaan ku dhahday qayb ka mid ah program weyn oo ay World Bank maamulaan oo la yiraahdo private sector engagement program phase 2 kaasi qayb ka mid ah oo nahay kaasi ilaa hadda ilaa dhowr qaybood iyo dhowr component boardka ka berbera ka shaqeynaya ba jira waxa jira kalluunka ka shaqeynaya value chain ka kalluunka si loo hagaajin lahaa waxa jira ka shaqeynaya xashiishka si la iskaga hagaajin lahaa kuwa qoloyiguna waxa jira one stop shop wax la yiraahdo ka shaqeynaya ka programka qayb ka mid ah ayaan nahay waxaan magac la yiraahdaa SPF Somaliland Business Fund. Should mention this larger program. It's funded by DNIDM, Danish International Development, the UK Department for International Development, DFID, and the World Bank State and Peacebuilding Fund. And this Somaliland Business Fund is managed by a specialized development consulting firm in the UK called Land Mills. marka programkan waxa fund gareeyo oo lacagtiisa bixiya donors waaweyn ay kamid yihiin DFID iyo Danida oo Danishka iyo qayb kale oo iyaguna World Bank ka mid ah ayaa lacagta inta badan bixinaysa waxaana maamulaba imika oo ka shaqeeya London Mills Company la yiraahdo oo development company ku yaala London ku base garaysa companygaas ayaa ka shaqeynaya maamulaya lacagta. So after this introduction, why are you here and what do you want you as an organization to achieve? We are a grant scheme. We provide grants to the private sector for private sector development, for business development in Somaliland. So we're supporting projects that will create jobs and incomes for Somalilanders, particularly for women and youth. waxaanu halkan u joognaa buuri Dennis qaynina private sector-ka waa ganacsatada ee Somaliland la shaqeynayna waxaanu ka caawinaynaa inay sameeyaan mashaariic wax ku oola oo horumarka wadanka sameeysa oo waliba looga dan leeyahay in shaqo abuuraan dumarka iyo dhalinyarada shaqo abuuraan. And after this, we all appreciate your time. And can you tell us a little brief about how the fund has been designed? It's a 2-year scheme at the moment. We have $3.6 million in grant funds to commit and disperse. It's an open scheme, meaning in any region and any sector. Applications can come from any region or any sector in Somaliland. We have no targets as such. We do, though, have what we call partial priority sectors. We give special attention to fisheries, gums and resins, and solid waste management. And it's also a competitive scheme, meaning we have calls for proposals, and then we select the best projects, and those are the ones that we support. The ones that we think will have the most development impact for the country. su-aashaad weydiisay jawaabteedu waxay noqonaysaa waxaanu nahay buuri oo program soconaya muddo 2 sanadooda loogu talagalay waxaana la hayaa lacag dhan ilaa 3 milyan iyo 600
oo la doonayo in loo qaybiyo ganacsatada Somaliland waxa weeyaan mid furan oo aan maxaan ku dhahday meel ku xadidnayn Somaliland oo dhan laga soo codsan karayo isla markaa waxaana weyn mid loo tartamayo oo maxaan ku dhahday tartan loo galiyo sidii loo heli lahaa garaankaasi waxa kale oo intaasi markaa programku uu noqonayaa way jiraan sectors la door bidayo in ay soo codsadaan codsiyo soo sameeyaan sectoradaas waxa kamid ah kalluumaysiga iyo maxaan ku dhahday kuwa beey ka shaqeeya ganacsiga beeyada iyo xabkaha iyo kuwa ka shaqeeya xashiishka hagaajinta xashiishka solid waste management-ka la yiraahdo hase ahaatee waxa weeyaan mid sector waliba ay soo codsan karaan wana u furan yihiin wana la dhiirigelinayaa inay soo codsadaan. So how did you market the fund that you have mentioned it to the potential applicant? I came here last July and set up the office, established systems and hire staff. Then we had what we called an outreach period from the middle of September to the end of October. And we had a series of launch events. We went across the country to the major communities. And then we followed that up with a series of training sessions for people that were interested and wanted to apply. We would explain the process and how to fill in our initial application form. We call it a concept note. And su'aashii aad weydiisay wuxuu leeyahay Dennis waxaan imid July sanadkii hore dibadna office-kii aan ka sameynay xafiiskii ayaa halkan soo laga sadab gareeyay oo laga diyaariyay dibadna shaqaalihii loo baahnaa la qaatay dibadna waxaan sameynay in maxaan ku dhahay muddo la wareego oo la daahfuro mashruuca dibadna daahfurkii kadibna dadkii waxaan ugu baaqaynay inay soo codsadaan oo ay application ay cod soo sameeyaan dibadna training aanu bixinay haddana dibadna training-yada wixii ka dambeeyay dadkii waxay bilaabeen inay codsigii keenaan marka in fara badan oo gobolada wareegayna runtii ilaa waxaan tagnay gobol aan tegin Hargeysa ee Somaliland muu jirin runtii meel walbana training baanu ku bixinaynay waxaanu ahaa wax dee loo tartamayo oo dadka u furan